Mareykanka ayaa Ruushka uga digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii hubka nukliyeerka uu isticmaalo dagaalka uu ka wado dalka Ukraine. Sidaasi waxaa sheegay Jake Sullivan, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden oo warbaahinta la hadlayay. Mr. Sullivan oo marti ku ahaa barnaamijka bandhiga toddobaadka ee telefishinka ABC waxa uu sheegay in saraakiisha Mareykanku ay si gaar ah ugu sheegeen dhigooda Ruushka in madaxweyne Biden uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin uu amro weerar nukliyeer ah, laakiin ma uusan sheegin sida uu Mareykanku uga jawaabi doono tallaabooyinka Ruushka ee la filan karo oo ah kuwo argagax leh. Jawaabta Mareykanka ayaa timid kadib markii madaxweyne Putin uu muujiyay suuragalnimada weerar nukliyeer ah, kadib markii uu toddobaadyo ka hor uu dib ugu yeeray ilaa iyo 300 oo kun oo askari oo ah ciidamada kaydka ee dalka Russia si ay gacan uga geystaan dagaalka 7 bilood ka socda dalka Ukraine. Korinta ciidamadan ayaa timid kadib markii Ruushku uu dib u dhac kala kulmay furmaha dagaalka, iyadoo ciidamada Kiev ay dib u qabsadeen dhul ballaaran oo ku yaala waqooyi bari Ukraine oo Ruushku uu qabsaday toddobaadadii hore ee weerarka. Dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo baaqa ee dib ugu yeerista ciidamada kaydka ee Putin ayaa ka dhacay dalalka Ruushka iyo sidoo kale gobollo ka tirsan, inkasta oo boolisku dadkaasi ay xabsiga u taxaabeen intoodii badneyd. Madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin ayaa waxaa sida khubaradu ay tilmaamayaan uu arrinkani kaga jeeday in uu ku dejiyo xiisadda. Hase ahaatee, aqalka Kremlin-ka ee looga arrimiyo dalka Ruushka ayaa tibaaxay in Ruushku uu adeegsan doono nukliyeerka siyaasadihiisa gaarka ah iyo caqiidadiisa ciidan. Waxay sidoo kale meesha aysan ka saareen in arrinkani uu yahay mid aan kaftan ahayn. Sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Russia Dmitry Medvedev ayaa dhowr jeer waxa uu ka dhawaajiyay in dalalka reer galbeedku ay ku ciyaarayaan dab, isaga oo tilmaamay in colaadda ay Ukraine ay ka horinayaan iyo deriska Russia aysan guryahooda ka nabadgeli doonin. Waxa uu tilmaamay in haddii xaaladdu cirka isku shiriirto oo Ruushku dareemo khatar ballaaran oo amniga qarankiisa ah, in xabadda iyo rasaastu ay usoo wareegi doonto dalalka ee gadaal ka taageeraya Ukraine guryahooda. Waxa uu si gaar ah u tilmaamay in Britain iyo Mareykanka iyo midowga Yurub ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo ballaaran haddii uu yidhi hubka iyo saanada ay ku taageerayaan Ukraine ay dhibaato u geysato dad Ruushiyaan ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in dagaalkan uu yahay Ruushka mid u ah nolol iyo geeri, isagoo tilmaamay in madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin uu kula talinayo in la soo afjaro colaadan iyadoo la adeegsanayo dhammaan tallaabooyinka suuragalka ah. Dhanka kale, Ramadan Kadyrov oo ah madaxweynaha gobolka Chechnya ee dalka Russia ayaa waxa uu sheegay inuu ka dalbanayo madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin in xilka qaadis uu ku sameeyo taliska guud ee ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha Ukraine. Waxa uu tilmaamay in Ruushku markaan waajib ay ku tahay inuu adeegsado nukliyeerka nuuciisa taatikada, nuuca qaraxyadiisu ay ka yaryihiin midka istiraatiijiga ah ee ballaaran. Waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay adeegsiga nukliyeerka taatikada ah si wax looga qabto, ayuu yidhi isku imaatanka ciidamada Ukraine ee baaxadda leh ee furimaha dagaalka ee ciidamada Ruushka. Ilawareedyo ku sugan gudaha ee dalkaasi Ukraine iyo kuwa u dhuun dalola arrimaha dagaalka waxa ay tilmaameen in ciidamada Ukraine ee dagaalka ku jira ay ku 3 jibaarmaan ciidamada Ruushka. Waxay sidoo kale tilmaameen in hoos u dhac ballaaran laga dareemayo aaladda iyo saanadda militariga Ruushku u adeegsanayaan colaadan. Waxaa sidoo kale la dareemayaa door ay baneeyeen diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka oo la dareemayo in wax ka yar 20 diyaaradood oo ah nooca dagaalka ay colaadda qayb ay ka yihiin. Tallaabooyinkaasi oo isbiirsaday waxa ay dhaliyeen in ciidamada Ukraine ay dhowr jiho oo weerar ay kaga soo qaadaan gobollada Ruushku haysto oo ay ka mid tahay Kharkiv oo laga saaray iyo sidoo kale gobolka Luhansk oo magaalada Lyman laga qabsaday. Waxaana sidoo kale gobollada dagaalada ay hareeyeen ka mid ah gobollada Luhansk iyo sidoo kale Zaporozhye iyo gobolka Kherson oo ciidamada Ukraine ay ka sameeyeen horumaro, inkastoo aysan la mid ahayn gobollada bariga sida Kharkiv iyo Luhansk gobolka la yiraahdo. Ciidamada Ruushku waxa ay sheegeen inay ka hortageen weerar ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada Ukraine, kuwaasi oo ka soo tallaabay xuduudaha iyo sidoo kale fronta line-ka ay sameysteen ciidamada dalkaasi Ruushka ee gobolkaasi. Ruushku waxa uu gobolladani sheegay inuu afti ka qaaday bishii aynu soo dhaafnay dadku u codeeyeen in ay ku biiraan Ruushka, taasi oo dhalisay in cambaareyno ba'an uu kala kulmo caalamka. Ruushka ayaana intaasi kuma ekaanay. Madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin ayaa u gudbiyay golaha baarlamaanka ee dalkaasi oo labada aqal ah inay ansixiyaan ku biirista 4 gobol waa Kherson, gobolka Luhansk, Zaporozhye iyo sidoo kale Donetsk inay ku biiraan Ruushka. Waxaana ansixiyay golaha federaalka Ruushka iyo sidoo kale golaha baarlamaanka ee Duma loo yaqaano. Ugu dambeyntii
inkasta oo aynu ilownay in ay saxiixday maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa ugu dambeyntii shalay waxaa loo geeyey madaxweynaha ruushka ee Vladimir Putin, isaguna qalinka ayuu ku duugay oo goboladaasi sida haatan ay tilmaamayaan xoguhu ruushku waxa uu diyaarinayaa in la geliyo dastuurka dalkaasi oo sharci ahaanba la difaaco, waxaana ka mid ah wasiilooyinka iyo noocyada difaaca ee goboladaasi lagu difaaci karo in la adeegsado nuclear-ka maadaama ay yihiin gobol ruush ah sida uu dhigayo xeerarka iyo qawaaniinta dalkaasi Russia u yaala. dalalka reer galbeedka iyo inta badan dunidu waa ay ka hor yimaadeen aftidaasi, waxaana ay ku tilmaameen kuwo been abuur ah oo la dhoodhoobay iyo mid loo adeegsaday xoog oo shacabka aan laga qaadin aftidooda xorta ah. Mareykanka, Midowga Yurub iyo dalalka xulafada ah ee gaashaanbuurta NATO waa ay ku gacan saareen arrinkaasi, xitaa dalal la ah xulafo ee ruushka oo ay ka mid tahay Iiraan ayaa diiday oo ba aqoonsanaa. sidoo kale dalka Shiinaha oo ka mid ah dalalka sida ba'an taageerada uga fidinaya Putin ayaa markaan ka gaabsaday isagoo tilmaamay inay ixtiraamayaan madax banaanida dhuleed ee dalalka. tallaabadaasi oo laga fahmayo in weli Ukraine ay dalkaasi ama goboladaasi u aqoonsan tahay Shiinuhu. sidoo kale ilaa iyo haatan waxaa ka jira dalka Syria oo ruushku uu taliskiisa isagu gacanta ku hayo, waa taliska Bashar al-Assad iyo sidoo kale taliska macaangaga ah ee dalkaasi Kuwait waqooyi oo isaguna haatan reer galbeedka kula jira loolan ballaaran oo dhanka hubka istiraatiijiga ah. isku soo wada duub dagaalku uu sii cuslaaday, ciidamada ruushka waxaa muuqata in laga gacan sareeyo, hase ahaatee marka ka dambeysa waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka dagaalkani ka dhalanaya, waxaana ugu wacan ciidamada ruushka oo dareemaya in aysan garab weyn ka heleelin taliska Moscow oo u muuqda inuu dayacayo ciidamadiisa ku sugan gudaha dalkaasi waa Ukraine. sidoo kale waxaa muuqata in ciidamada Ukraine ay sameynayaan wax u muuqda in ay hor u socodka ay kaga faa'iideysanayaan inta ciidamada ruushku ay wadaan is-abaabulka ballaaran ee bariga dalkaasi ay ka sameynayaan. toddobaadyadii u dambeeyay kolkii ay suuragal ay noqotay in ciidamada ruushku laga saaro gobollo badan oo ay bariga Ukraine kaga sugnaayeen, waxaa soo baxaya dhaleeceyn ballaaran oo loo dejinayo ama loo jeedinayo istiraatiijiyadda ciidan ee ay adeegsanayaan ciidamada ruushka, taasi oo lagu tilmaamay inay dhayalsanayaan ciidamada Kiev, kuwaasi oo Mareykanka iyo dalalka reer galbeedku ay ku taageerayaan hubka noocyadiisa ugu culus, tababarana ay siinayaan. sidoo kale dhanka istikhbaaraadka iyo xogaha sirdoonna lagaga taageerayo satellite-yo dul hoganaya dhammaan aagga dagaalka iyo xitaa gudaha ruushka, kuwaasi oo uu ruushku ku tilmaamay inay yihiin kuwo gardarro ah. waxa uu wasiirka gaashaandhigga kol hore oo bishii hore uu tilmaamay in ka badan 200 oo ah dayax-gacmeedyo isugu jira kuwo ganacsi oo maxalli ah oo ay leeyihiin dad ganacsato ah iyo kuwo ciidanba loo adeegsanayo si loo jaajuuso ciidamada ruushka ee dagaalka ku jira. waxaa sidoo kale ay tilmaameen dagaalkaasi inuusan ahayn dagaalka nooca loo yaqaano proxy war ama xarbul wakaala, taasi oo Soomaali ahaan ka dhigan inuu yahay dagaal wakaalada wax loo yaqaano ama dagaal taageero loo fidinayo dal kale taageeraya, isagoo lagoladan leeyahay in lagu daciifiyo ruushka. waxaa muuqanaysa in ciidamadiisu dabagorashooyinka ay wadaan ay kasoo kabsan doonaan waa haddii ruushku adeegsado awoodo dheeri ah, inkastoo aan la filaynin in si dhow wax isku bedelaan. hase ahaatee wax walba oo soo kordha waynu la socon doonaa, waynu idiin soo gudbi doonaa daawadayaal.